haddii aad nin weyn tahay oo aad ka hadlaysid arrin laba dhinac u dhaxaysa inaad dhexdhexaad u muuqato. waxaan ka xumahay dooda federaalka iyo xiriirka dowladda federaalka iyo gobollada halka uu marayo inay igu adag tahay inaad dhexdhexaad ka noqdo, taana waa ka cudur daaranaya. waxaan idiin dulmarayaa qoraal kooban, meelaha qaarkoodna waan ku hakan doonaa. rag kale oo khubaro oo banalka oo qaarkood baan badidooda iga aqoon badan baa yaa buuxin doona waxa iga dhimanaada. su-aalahana waan wadaagi doonaa. burburkii dowladdii ku dhisnayd taliska kelitalisnimada ee Soomaaliyeed iyo dagaalkii ehliga ahaa ee ka dambeeyay wuxuu keenay in dib loogu noqdo hab qabiili ah iyo nidaam hogaamiye kooxeedyo oo hormuud u noqday dagaaladii lagu hoobtay. dagaaladaas dhibta dad iyo maal ay geysteen ka sakow waxay xididada u siibeen wadaniyaddii iyo dowladnimadii Soomaaliyeed, taasoo keentay in la is-aamini waayo oo beelihii dagaalamay kala fogaadaan. dadaal badan oo dowlad goboleedka IGAD iyo beesha caalamku isugu tageen iyo gobol nabadeedyo sanado qaatay oo Djibouti iyo Kenya fidiyeen waxay keentay in dib loo yabyabo dowlad Soomaaliyeed oo ku dhisan habka federaalka. waxaa kaloo la qoray dastuurka qabyada ah oo aas-aas u noqday soo celinta dowladnimada Soomaaliyeed. raggii dastuurka qoray qaarkood caawa meesha inala fadhiyaan waa ammaan gooni ah oo Puntland leedahay. doorashada habka federaaliga ma ahayn mid laabla kaca, bal waxaa loo arkay xalka keliya ee Soomaali la isugu hayn karo loogana fogaan karo habka litalisnimo oo ahaa sababtii keentay burburkii Soomaaliya. sidaa darteed waxaan qormadan ku eegaynaa meesha uu marayo mashruuca federaalka, dastuurka iyo habka federaalka. in habka federaalku yahay furaha nabad u raadinta Soomaaliya waa mid muuqata. hordhacana waan ku soo xusnay muhiimadda la siiyey federaalkan waxaa u marag ah in qodobka 1 iyo 4 si cad loogu qeexo oo ay weheliso in ku dhaqan la'aantiisu dambi tahay. qodobka 1 ee dastuurku wuxuu oranayaa Soomaaliya waa jamhuuriyad federaal ah leh gobonnimo dimuqraadi ah oo ku dhisan matalaadda dadweynaha loo dhan yahay oo ku salaysan nidaamka axsaabta badan iyo cadaalad bulshadeed. الله سبحانه وتعالى كسكو أود دم وحال الشرعية أود دم وحال الشعبك وحنا أبو استعماليا ستوصة يسقو أديكسن هذه سووح صارتي سوى فرصة دستورك يشروع ده وحرهبا إن قف أما قايب كمية بالشدة شيء تجوب النمو الجمهورية الفدرال كصوماليا أما أو أديكسن تسوق جاره جوب النمو iyo midnimada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa lagu maxad gudbaan. qodobka 4 ee dastuurku wuxuu oranayaa shareecada ka sokow dastuurka jamhuuriyadda federaalka waa sharciga dalka ugu sareeya, isaga ayayna xukuumaddu u hoggaansamaysaa wuxuuna hagayaa hal abuurka iyo go'aanada siyaasadeed ee qaybaha dowladda oo dhan. sharci kasta ama tallaabo maamul oo ka soo horjeeda dastuurka maxkamadda dastuuriga ah ayaa awood u leh burinta sharcigaas ama talabada maamul si waafaqsan dastuurka. inkastoo ayaan darro tahay in dastuurkii la qoray 2009 uu weli qabyo yahay, haddana run ahaan wuxuu u taagan yahay meel wax laga bilaabi karo maadaama uu koobayo xeerinayo dhammaan arrimihii waaweynaa ee saldhigga u ahaa dowlad federaal. haddii lagu dhaqmana waxaa hubanti ah inuu horumar u horseedayo, taasoo ay marag u tahay guulihii ilaa hadda la gaadhay. xaaladda guud ee dalku marayo halkaan markaan marayo intaanan qoraalka gelin waxaan rabaa inaan wax yar oo laga yaabo inay iska caadifo tahay ka hormariyo. dalku dhaqaale iyo amni isku mid ma ahayn.
meelo nabad iyo maamul awood badan ka jiro oo Puntland ka mid tahay oo Somaliland ka mid tahay iyo meelo nabadeedu adkaatay iyo meelo soo kabanaya marka isku xaalad ma ahayn laakiin haddana dalku ganacsi iyo isku socod wuu isku firaa dal kala go'an ma ahayn marka waxaan waxoogay ka taaban doonaa meesha hadda dalka xaalku marayo oo sidan ka afeertay laga yaabo in la dhihi karo amuusan ahayn dhexdhexaad ka ahayn iyadoo laga duulayo dastuurkan waxaa suuro gashay dhismaha 5 dowlad goboleed oo xubno ka ah federaalka iyo Somaliland oo gooni isku taagoosatay dowlad goboleedyada xubnaha ka ah federaalku waxay ka kooban yihiin dalkoo dhan waxaa kaloo suuro galay in la dhiso golayaal shacbi iyo tiraba 3 jeer in la bedelo madaxweynayaal si nabad ah oo dimuqraadiyad ah waxaa haddaba ayaan darro ah in meeshii hore looga sii socon lahaa ay muuqato walaac xoog leh oo laga qabo in dib loo noqonayo mashruucii federaalkuna qarka la hadlaado walaacaas wuxuu salka ku hayaa arrimo dhowr ah oo khatartooda wata kow ka gaabinta la dagaalanka argagixisada waxaa muuqata in dagaalkii argagixisada ku wajahnaa loo leexiyey duminta maamuleed goboleedyada iyo la dagaalanka mucaaradka rayidka ah iyo ciddii aan gurbaanka u tumin dowladda federaalka 3 musuqmaasuq aan hore loo arag waxaa shacabku u jeedaan in dhaqaale aad u fara badan oo ama horumarka dalka ama loo isticmaali lahaa ama argagixisada lagula dagaalami lahaa loo adeegsanayo burburinta iyo sanduleynta xubnaha dowladda sida gobolada iyo hay'adda sharci dejinta dhaqaalahaas oo badidiisu ka imaanaya dalka Qatar oo sida loo isticmaalay aan cidi isweydiin 3 baalmarka dastuurka in dowlad goboleedyadii dastuuriga ahaa la burburiyo iyadoo la adeegsanayo awood ciidan iyo laaluush in loo diido shucuubta gobolada dalka inay doortaan madaxda dowlad goboleedyadooda si waafaqsan dastuurka qaranka laguna qasbo shakhsiyaad xukuumadda federaalka wadato in habdhaqan kalitisnimo ah ka muuqdo madaxda federaalka iyadoo siyaasiyiinta mucaaradka ah la weeraro mararka qaarkoodna ay dhacday inay dadku dhintaan in shuruucdii taabanayay danaha dowlad goboleedyada oo ay ahayd in lagala tashado intaan baarlamanka la geynin laga tallaabsado si aan dastuuri ahayn baarlamanka loo geeyo xayiraadda Jubbaland lagu soo rogay oo nuxurkeedu yahay in hawadii Soomaaliya loo isticmaalo hub lagula dagaalamo maamul dastuuri ah oo xubinka federaalka iyo ciqaab muwaadinka Soomaaliga qodobka xiga xiriirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka waxaa lagu doodi karaa inuusan jirin xiriir macno leh oo ka dhaxeeya xukuumadda federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka dowlad goboleedyadu waxay u kala qaybsan yihiin 2 qaybood kuwo la sanduleeyay oo madaxdii dadku doorteen laga saaray madaxa xukuumadda federaalku wadatana ay hogaaminayaan kooxdaas waxay ku qasban yihiin inay u hoggaansamaan madaxda federaalka iyo koox difaacanaysa xuquuqdooda dastuuriga ah oo raba in xiriirka xukuumadda federaalka ay la leeyihiin uu noqdo mid waafaqsan dastuurka kooxdaa hore aan soo sheegnay waxaa ka mid ahaa waa inaan soo sheegay waxaa ka mid ah South West Hirshabeelle iyo Galmudug gobolka Banaadir weli looma samaynin maqaamkiisa kuwa difaacanaya dastuurka oo raba inay xiriirku ahaado mid dastuurka ku dhisan waxaa ka mid ah Puntland oo ah hooyadii federaalka oo aan xiriir la taaban karo la lahayn xukuumadda federaalka Jubbaland iyo xukuumadda federaalka xiriirka ka dhaxeeya waa mid colaadeed xukuumadda federaalka oo ku guul dareysay inay xukunka u dhiibto musharax ay wadato waxay diidan yihiin aqoonsiga hogaamiyaha dowlad goboleedka Puntland waa soo tabarlaayay Somaliland oo ay ahayd in lagala xaajoodo gooni sutaaga
وحدا الحياة أما وذا شقينا لما لها حكومة فدرالك في رجارة حريرك حماضي حكومة فدرالك الدولة قبل يدو وحو سبب سنة موقف كمدحضة أسر رئيسة حكومة فدرالك وإلى أنتي لدورتي سيدة بن يزيدو صاحب وقوها والقلي ويقيد هبك فدرالك يسون ولا أنت هبك للتلسنماء أنت تبرت أسامحدو توحى هرتاجن شعبية يدولة قولادية أهربو إن الراعي هبك فدرالك كان كلية اللي جوه شيء هدان لو أول شيء تسألوين كوبوا وين فدرال دي لماذا ما لحد حكومة فدرالك وحكم ده كو كلا درستي قليه وذا تشجع ما لحد سرع leadership forum كي لجوه جامين يدلك سوى ذا شرع أو أي حبناك عهين ما لحد فدرالك يكون دولة قولادية ده لبا رديدي هو جاميه رعداجة هاي برلمانك هي محكمة السرية صدح إن برلمانك هي محكمة السرية لو ديبو مدح عن كرمسة ومدحوينه رئيس الوزراء هو تان قدر كحيجة اسكو ميلانك أود شرع دشنتا يتنفلنت طلابات المانوح ربيتانك كلت الاسنمو مدح وصل رئيس حكومة فدرالك وحي أهيد إن سي انقلابه أي أريدان هجانك برلمانك waxaa kaloo golaha wasiirada lagu daray xildhibaano aad u badan oo lagu amray inay xukuumadda naqdin karin waxaa sidoo kale gunooyin dheeraad ah loo qoray xildhibaano badan si ay nacamliyaan u noqdaan tani waxay keentay isku milanka labada awoodood ee dawladda waxaana meesha ka baxday kaalintii baarlamaanka ku lahaa kormeeridda xukuumadda iyo hubinta ku dhaqanka dastuurka xaqiiqan la diidi karin waa in baarlamaanka hadda jira waxba ka duwanayn kii xilligii jeneraal maxamed siyaad barre ee shacabweynaha ah waxaa shaki la'aan ah in wax allaalihi wixii madaxweynaha ama ra'iisul wasaaruhu ay rabaan cid su-aal ka keeni kartaa ay jirin xitaa haddii ay dastuurka garamarsan tahay tabarxumo ka imanaysa inayn dalka gacanta ku haynin iyo inay soomaalidu ku adag tahay aqbalidda xukunka litalisa mar kale ayaa keliya ka hortaagan madaxda hadda jirta inuu dalku noqdo keli katalis habka federaalka ana daaqada laga tuuro doorka beesha caalamka muddadii dheerayd ee ay soo kaca ku faysay dib u yegreelidda dowladda Soomaaliyeed beesha caalamka iyo goboleedka IGAD waxay ku lahaayeen door muuqda ha ahaato taageeridda dhaqaale ama isku keenidda kooxaha isdiidan ama ku cadaadinta ku dhaqanka dastuurka doorkaas wuxuu inta badan watay gacan maroojis madaxda sare markii ay ka baydhaan tubtii lagu heshiiyey ama ka meermeeraan qabashada doorashooyinkii la muddeeyey haddaba ilaa intii la doortay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo doorkii beesha caalamku wuxuu noqday mid meyd ah una nugul hal dhinac sababtu waa maxay inkastoo ay mudan tahay in la isla qiyaaso waxay aniga iigu muuqataa inay sababo u yihiin dhowr arrimood siiba IGAD iyo Mareykanka doorashadii madaxweyne Trump waxay hoos u dhigtay muhiimadii Afrika guud ahaan gaar ahaan Soomaaliya safaaradda Mareykanka oo muddo dheer lahayn safiir waxay gar la'aanba u taageeraysaa xukuumadda federaalka caalamkuna dhab ahaan Mareykanka kama hor imaadaan isbeddelka Itoobiya oo haysa guddoonka IGAD ka dhacay iyo heshiiskii ra'iisul wasaaraha Itoobiya madaxweynaha Eritrea iyo madaxweynaha Soomaaliya ee isku darka hoonka wuxuu weeqay doorkii IGAD